aad baan ugu dhibanay xaaladda. qisooyinka hore aad daawanayseen tani waa mid ka duwan. wax ku dhow 4 kiiloomitir dhanka bari magaalada Laascaanood meel la dhaho Oodagooye ayaanu markan masaafo u soconnaa. waa masaafo jirta 3 kiiloomitir waxaan u soconnaa meel ka baxsan Laascaanood. markan warbixin ama qisadaba ayaa halkan ku soo gudbin doonaa daawadayaal la socda. marka aanu gaadhno ayaanu halkan ku soo gudbinaynaa. waxaanu tagog iyo wadadiiba soconaba waanu soo gaadhnay. muddo badan oo hooyadani ee bahda Bidhaan Media la soo xiriirisay ugu dambeyn qadarka ee bagadaashii markaanu soo gaadhnay goobtan oo aanu saacado kooban isu soconay oo aynu waji garatay hooyadani mooraalkeeda ayaa isbedelay. safarkiisa ayaanu soo galnay 130 kiiloomitir safar kadib 5 kiiloomitir ayaanu dhanka Oodagooye ee bari u soo aadnay. xaaladda qoyska hooyo qorsho aanu halkan si aan uga diyaarino. hagaag daawadayaal xaaladda dhabta ah bartan ayay ka bilaabi doontaa. anigoo haddaan doono dhariga karinaya buu suuxayaa, dabtiisaan maqlayaa, waan ordayaa, dharigii wuu gubanayaa. jaanis aan meel ku baxo ama tago ama isaga wax ugu soo qabto ama dadka kale reerka faamilka kale wax ugu soo qabto ma jiro. hooyo qorshe jaamac warsame waa hooyo korisa 4 caruur oo ugu weyn yahay wiilkan xanuunsan iyo gabadha 9 sano jira. gabadhu subax walba sidan ayay ariga u raacdaa si caanaha riyaha looga soo liso ay noloshooda ugu dabaraan qoyskani. waxbarashada warkeeda badaa nolol maalmeedkii ayaysanba helin mararka qaar. hooyo qorsho mar kale waxay la tacaashaa xaaladda Axmed Yare oo xanuunka dhimirka uu haleelay muddo 2 sano markuu jiray. meelo badan oo dalkaana laga soo quustay 8 sano wax ku dhow Axmed Yare sidan ayuu ahaa. hadal warkiisa badaa waxaba u dheer dhicid joogta iyo inaan laga dul tagin. xaaladiisa marka uu xanuun ku qabto dhaawaca soo gaadha 8 sano wax badan baan la soo maray. mar walba dhaymo horle iyo maxaan dhahday baan la soo maray. ilaalinta isaga keligii in la ilaaliyo anigu waqti siinaya baa igu haysa dhibaatada ugu weyn. waayahay muddo dheer baa sheegtay inuu Axmed Yare xanuunsanayay, bal muddada dheer xaaladda guud ee uu ku sugnaa Axmed bal nooga war. markii hore wuxuu ka bilaabay suuxdimo. markii hore wuxuu ka bilaabay darbad aad u siyaada ah. darbadii badnayd irbada ka harjabina waanu siinay darbad jabina. darbadii badnayd waxay keentay suuxdimo. suuxdimihii waxa ka dambeeyay mar uu suuxdimihii ka soo noqday aan dhakhtar garow geynay uu sidii yar dhaamay marmar uu hadlaa jirtay. uu ku soo noqday haddana 4 sano ka bacdi suuxdimihii baa ku soo noqday. haddana xaaladda xanuunku sidii markii hore suuxdimihii ka bilaabay mar walba xanuunka ka soo bilaaba. xanuunkaasi suuxdimuu ka imaanaya. 4 sano markuu joogay hadalkiiba uu xidha. suuxdimo xitaa isku mid maaha, waa kala si marna qaska ku dhagaya oo waxaad arkaysaa isagoo la beeranayo neefta kaliya ka soo bixi kari leedahay. mar waxaad arkaysaa isagoo kala qallalan 1 saac baan labadiisa qal isku imaanayn. marba sibuu suuxayaa. hadduu dhaco bishintu waa mararka qaarkood way goodaa ilkuhu ku dhuftaa. mar hore buu dhacaa wuu dakhramaa. xaaladihiisu saas ay dhibaatadiisu u badan tahay. waayahay waxa ma oonaya maayo cunada haddaadan adigu afka ugu gurina ma cunayo isina ma ku odhanaya. hooyo Soomaaliyeed baa tahay, waxaad sheegtay dabcan nin meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah adgeysa iyadana waxba laga qaban karo waa la guri dalka dibadiisa gee. waayahay sidee wax ugu kala heshaa inaad cuntada u kariso iyo isaga inaad ilaaliso? aad baan ugu dhibanay xaaladda. xaaladaasi waa xaaladda ugu adag ee aan ka cabanayo. anigoo haddaan doono dhariga karinaya buu suuxayaa, dabtiisaan maqlayaa, waan ordayaa, dharigii wuu gubanayaa.
jaanis aan meel ku baxo ama tago ama isaga wax ugu soo qabto ama dadka kale reerka faamiliga kale wax ugu soo qabto ma jiro waqtigiigu isaga keligiis ugu gubaya ilmaha aabihi wuu joogaa laakiin reerka xaaladiisoo dhan baa iska danyara muddadaas 8 sano waayahay si guud fariinta aad bulshada u diraysa dareen ahaan kaa soo baxaysa qalbiya maxay tahay su-aasha aan u dirayo dadweynaha soomaaliyeed waxaa weeye dhibaatada xaaladda adag oo iga haysata ilmaha yarka in si degdega laygala qayb qaato oo layskula kay garab istaago walaalahayga soomaaliyeed waxaad daawadayaal waxaad daawanayseen xaaladda dhabta ay halkan aan u nimi idinka warbixinaysay oo hooyo qorsho oo runtii ilmaheedu aad dareemi karaysaan xaaladda dhabta ay ku sugan yahay mar kale waxaad dareentaan hooyo ilmaheedu ka xanuunsan yahay muddo 8 sano ah iyadoo laftigeedu xanuunka ay dareemi karayso oo iyo xaaladda dhabta ay halkaas ay kula sugan tahay haddaba lambarada shaashada ku qoran ayaa halkan rabaa inaan idinku soo gudbiyo telesoomti waxaa weeye 063 65 49 67 kow baa u dambeeya waa telesoomta weeye mar kale aan ku celiyo waa 063 65 49 96 71 golisna waxa weeye furo 7 15 eber 4 52 golista mar kale aan ku celiyo waa furo 7 15 eber 4 52 hagaag daawadayaal si degdeg ah hawshaasi ay nooga soo wada dhammaantiin